Soomaalidii Minnesota arrin kale oo masiibo ah ayaa dhexda ugu jiraan. Inta aan ku mashquulsanayn maalmahan sheekada Turkiga iyo Ethiopia iyo baddii labadii maalin la soo dhaafay qiso kale oo xanuun badan oo aan isdhihi karo waa inaan cashir ka barano Soomaalida qurbaha joogto ayaa ka dhacday Minnesota kuna dhacday ummadda Soomaaliyeed. FBI-da ayaa waxay galeen laba xarumood oo Soomaali ay leedahay. labadan xarumood Soomaalida sanadihii la soo dhaafo oo dhan waxay dowladda uga sheekayn jireen in xarumahan lagu caawiyo waxtar far badanna loogu sameeyo carruurta yaryar ee wax loo yaqaano autismka. Autism waxaa waaye waa cudur inta badan carruurta weliba kuwa maskixiyan aan u korin yacni ay qabaan oo u baahan kaalmooyin dheeraad ah in loo fidiyo. مثلا هذا عنق اللي حسنوا جراء في صومالي سفي عن أقوم هذا في إنجليز كان سفي عن أقوم هذا مسكحيا سفي عن مكورين وحيابا نوعاس أو كلا أيام مركو حلوي قنا أوتيزم مركا دل كان أنا أجوجنو عرورته مركي إن حاجة مسكحيا أيسن أكورين وحاجرو حرمه لوجو عاوية أو دولة العكسيس أيجرو سي لوجو جرجارو أو يعني كلمون ديري عرورته لوجو فيديو صومالي دي شكلها مخلين وحين مخلين حارون هدا فورتيد oo ilmaha maskixiyan xoogaa dhiman ama aan hormarin wax loogu qabanaa dawladda lacag ay kugu siinaysa gobolkana lacag kugu siinaa la maqlee Soomaali ma ku ogeed adi Soomaali ba ku ogeed waa la wada duday xarumo fara badan horta ceeba soo socod waliba dad aad taqaanaan oo aniga ahaan asiiqi qiyaasay dad aad taqaanaan caan ah qaarkood laga yaabo in siyaasadda Mareykanka iyo tan Soomaaliya ay galeen warwajiyo badan soo socdo bilaha soo socdo laakiin Soomaalidu waa inay cashir ka barato warka aku soo kooba hadda laba xarun ay FBI-da gashay laakiin warqad dheer ay soo saareen oo maxkamadana ay soo saartay FBI-da ay soo saartay oo baaris waxa socoto Soomaalida inteeda badan hadda ku socoto yaabkaas maqla labadan xarun marka hadda maxaa laga soo gudbiyay oo ay hor keeneen FBI-da waxay leedahay labadan xarumood dhabar iska taabasho lagu furay dhabar iska taabasho macnaheedu waxa waaye Soomaaliya furatay Soomaali markay furatay ummadii kale oo dhan gasaa loo sii Soomaalida iyaga dhabar iska taabatay dacaasho waxay u tagtay daxaliimo daxaliimo waxay ku dhahday daxaliimo xarun oo furtay oo lacag aan yani dawladda iyo uga qaadanayo markuu cunugaada magaciisa ma qoran karaa dhageystayaal sheekadan Soomaalidana meel walba waa saas waa sameynaa saan waa inaa wax ka bedelo daxaliimo waxay dhahday ha cunugayga leeyahay oo magaciisa qaado wajigiisana waa kan ID-giisana waa kana marka labadan xarun waxyaabo lagu soo qabto waxa kamid ah magacyo fara badan caruur run ah magacooda uu sax yahay inay qorteen oo waa caawinaa caruurtaas autism ay qabaan ayay ku diiwaan galiyeen caruurtiina ma qabaan autism oo waa caruur iskuulkooda aado xisaabtooda ku fiican hooshooda iska wadato waay marka waxaa la leeyahay xarumahan waalidiintii caruurtooda magacooda la qoray oo sida beenta loo qoray waalidiintaas baa lacag loo laabay $500 cunugaada si beenbeenay ah liiska ugu jiro macnaha taas waa lagu qabtay labadan xarun mid waxa lagu qabtay ku dhawaad $4 milyan inay cuneen mid kalena waxa lagu qabtay $6 milyan inay damsiyaan caruurta u wada qoran oo dhanne cudurka la sheegay maba qabaanba waa caruur iskuulkooda iska aado hooshooda iska wato waay sidoo kale shaqaalaha labadan xarun ka shaqeeyo Soomaalida ay shaqaaleysiiyeen waa isla caruur dalkan 18 jirka iyo 17 jirka iyo 19 jirka kulli caruur loo yaqaan marka caruur yar ah oo xitaa tababar ay gelin oo therapy waxay tahay aan aqoonin oo autism wuxuu yahay aan aqoonin abala shaqaaleysiiyay oo xarunta laga shaqaaleysiiyay marka waxa wararka waxay sheegayaan qof Soomaali ah oo xarumahan ka shaqeyn jiray inuu sheekada ka shifay oo dawladda u jaajuusay yani dawladda qof u sheegay qof meelahan ka shaqeyn jiray oo Soomaalida iyo tuugnimadooda fahmay dawladda u sheegay war meeshaas ha laga warhaayo FBI-dii sheekadii maqashay dalaq way gashay cadeemo tiro badan oo madaxaada uusan qaadi karin oo been iyo borbogaan iyo tuugnimo lacag lagu cunayay FBI-da gacanta ku haysaa baarisna waa socotaa sheekadan waxay la xiriirtaa sheekadii ceebta kale sanadkii 2023 dhacday oo ayadana $240 milyan ee dam ku siiyeen Soomaalida iswiid eemi yaa xasuusto Soomaali fara badan nimayahow horta waxa uu qoslooyo wax loo qoslo meesha ma yaalaan raali ahaada laakiin hal fariin Soomaaliyay annaga horta ceebta ma xumo
ceeb qof dad qof bini'aadi ka qof bini'aadin aan ahay ceeb waa ku dhacnaa laakiin anaga markii ceeb aan dhex galno maxay u tahay carruuraa dhacdeen iyo carruura ka been sheegteen iyo aaway diintii aaway dhaqankii aaway dad fiican dadkan maraykanka weligood waxay noo malayn jireen ummad wanaagsan diintooda dhaqankooda waxay qorshaha wuxuu ahaay diinta iyo dhaqankii in yacni la fiicneeyo la faafiyo oo soomaalida dhan wada xumo laakiin nimayaho waxaan hadda reer minnesota xitaa dadkii caddaanka ahaa ee soomaalida taageersanaay aaba hadda kacay oo xanaaqay hadda saak waxaa maqlayay Tim Walz ninka Minnesota ka ah gobernatoraha isla asagaaba dhahayba warsaan tala ma ahane baaris dheeri ah Soomaalidan ha lagu sameeyo waa ninkii Soomaalida taageeri jiray weligiis hortaagnaa uu dhihi jiray Soomaali qofkii taabtay aniga isku dhaceena